السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولاشين حفصة جنال كان نقدر ونسنا حفصة جنال إن شاء الله وحي رجعنا أن تعافيمات قبتين أنا وافي عنها الحمد لله من ربع جوكتنا الله سبحانه وتعالى إذن سيو عمر دير عباد السوبن إن شاء الله ما أنت waxaa ka hadli doonaa sagaal qodob haddii aad sameyso aad noqon karto ruux guuleystay amba sagaalkan qodob haddii aad ku dhaqaaqdo aad ku noqon karto qof rajadiisa amba riyada uu lahaa ka dhaweeyay insha Allah waxaad kale ka daawan doontaan isla muuqaalkan insha Allah daawasho macaan haddii aad dawaysaanne si share galay oo la wadaaga asxaabtiina biidnillah. Number 1 waa inaad tahay qof rajo leh يعني qof rajo leh marka dhahayo يعني waxa aad rabtid inaad sameysid amba riyada aad leedahay inaad rumeysid يعني waa inaad u lahaataa rajo iyo hami waa inay ka soo baxdaa maskaxdaada ka soo maaxataa rabitaan iyo doonis ay ku lahaataa يعني waxa hadii aadan rajeynaynin guul hadafka aad leedahay hadii aadan rajeynin inaad ka dhaweyn kartid يعني wax ku soconayo male qodobka ugu horeeya waa inaad noqotaa qof rajo leh mar walba rajeynayana wax aad ku rajeynaysan inay ku ahaadaan khayr aad mar walba khayr ku rajeysid biidnillah. Number 2 waa inaad noqotaa ruux daacad ah يعني روح دعات مركا دهايا وحي لمid tahay يعني waa inaad noqonin qof يعني qayaano badan amba been badan يعني qof mar walba dadka been ugu sheekeeya hadalada oo dadku soo gudbinahay ay yihiin wax been ah يعني runta u sheeg dadka يعني hadaadan runta u sheegi karin يعني waxaaga adiga seef يعني ha ku qarsoonaadaano oo qalbigaaga ha kugu jiraano. lambarka labaad waa inaad noqotaa qof daacad ah mar walbana dadka la wadaaga runta waxay tahay. Number 3 la saaxiib qofka cilmi badan marar badan soo jabay oo iskala weyneenin يعني qofka cilmi badan macnaheedu waxay tahay qof يعني oo ka cilmi badan oo soo guuleysta marar badan soo guul dareysta oo soo jabay haddana macnaheedu fahansan guusha waxay tahay guul daradana waxay tahay fahansan يعني qofkaas iskala weyneenin ani ahaan ka xafs ahaan waxa idin kul talinayaa inaad la saaxiibtiin dadka idinka cilmiga badan oo idinka waaweyn oo idinka aqoonta badan inaad la saaxiibtiin oo aad la sheekaysataan يعني dadka sidii aad la sheekaysataan oo aad la saaxiibtaan oo idinka cilmi badan waxyaabo badan aad ka faa'iideysanaysaan waxyaabo badan aadan aqoonin ayaad ka fahmaysaan يعني qofkan oo soo guuleysta mar badan soo jabo markaad la sheekaysatid arimaha aad la sheergareysid يعني lagama yaabo qofkan qodaxdii shal oo ku soo istaaga asiga يعني oo ku soo guul dareyso oo ku soo jabay يعني ma laga yaabo inaad inaad adigu ku istaagtid maanta asiga ayaa ka qabanaya asigaan ka wareejin doono oo ka qaadi doono qodaxdaas oo wadada wanaagsan ku marsiin doono يعني waxaan ka faa'iideysanaysaa macnaha guusha ay tahay iyo macnaha guul darada ay leedahay. Number 4 ha soo bandhigin hadafkaaga oo dadka hala wadaagin dad badani hala wadaagin ilaa dad qaasa maahine يعني markaad tahay qof wax soo bandhigi doono يعني picturadaada amba waxa يعني hadafka aad leedahay sawiradiisa يعني dadka badana ha u soo bandhigin amba hala share gareyn ha u sheegin ilaa dadku khaas ah maahine يعني hala share gareyn marka ku dhahay macnaheedu ma aha dadka oo dhan ha u sheegin adiga kaliya ha ku koobnaadaan ma aha يعني u soo bandhig dadka laakiin waa inay ahaadaan dad saaxiibadaada ah ku khaas ah hal qof amba laba qof يعني waxaad u baahan tahay waxaan markaad sameynaysid inay xun yihiin amba inay fiican yihiin qof ku sheega waxaad u baahan tahay qof fikradaada wixii wanaagsan ku sii ziyaadiya wixii xunna ka bixiya waxaad u baahan tahay fikrada aad la adiga la imaaday qof ku yani kuuga dhiirigeliyo waxna ku ziyaadin karo fikradna ku siin karo yani dadka ha u soo bandhigin badankooda rajila ayaa waxa laga yaabaa inay kaaga imaado hadalada dadka yani inay dib ku rigaan waan ka hadli doonaa insha Allah u soo bandhig dadka khaaska amba saaxiibadaada. Number 5 waa inaad noqotaa ruux naftiisa ku kalsoon aaminsan inuu wax kasta qaban karo yani haddii aadan naftaada ku kalsooneen aadna aaminsaneen inaad wax kasta qaban kartid oo adduunkan hadda aan joogno aadan wax ka bedeli karin noloshaadan wax ka bedeli karin yani wax ku hagaagaya ma lahan qodobkan waa qodob aad muhiim ah inaad naftaada ku kalsoonaato waa shay muhiim ah
kalsoonida naftaada ayaa waxay xoojin kartaa wax walbo aad rabtid inaad qabatid inaad ku guuleysatid ayay xoojin kartaa sidoo kale inaad aamintidna inaad wax kasta qaban karto waxay ka imaanaysaa inaad naftaada ku kalsoon tahay haddii aadan ku kalsooneen yacni ma aaminaysid inaad wax kasta qaban karto laakiin haddii aad naftaada ku kalsoon tahay waxaad aaminaysaa inaad wax kasta qaban karto rajo walba aad leedahayna inaad ka dhaweyn kartid number 6 dib ha u eegin hadallada dadka ee dib kuu dhigo يعني waxaa laga yaabaa hadafyadaada inaad dadku usoo bandhigtid kadibna dadka commentiyada amba fikrada ay ka dhibtaan aad niyajabtid marna ha niyajabin hadafka aad leedahayna ka dhaweyn dib ha u eegin hadallada dadka weligaadana gadaal ha fiirinin mar walba hortaada fiiri oo adiga hadafka aad leedahay ha ku cadaado oo ka dhaweey hadallada dadka ha ay eegin oo dib ha u fiirinin number 7 ha noqonin qof xaasid ah يعني الحسد لا يفلح قفك حاسد ما قوليستو محال دهاي waxaad naftaada la jeceshahay waa inaad la jeclaataa walaalkaaga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu nooga dardaarmay qofka muslimka ah waxa uu naftiisa uu la jecel yahay waa inuu walaalkiisa la jeclaado kabaran haddii aad kaligaaga guul jeceshahay haddii oo aad kaligaaga maxaa la nolol qurux badan aad jeceshahay haddii aad kaligaaga wax walba aad isla jeceshahay kaligaaga haddaa mustaqbal qurux badan jeceshahay aad dad kale waxba aad u ogoleen waa inaad noqotaa qof dadka u ogol waxa uu naftiisa u ogol yahay qof dadka la jecel waxa uu naftiisa la jecel yahay kaliya harjeena mustaqbal qurux badan kaliya harjeena nolol qurux badan kaliya harjeena guul dadka oo dhan u rajeey waxaad noqonaysaa qof liibaanay oo guuleystay maxaa la dhahaa wax walba oo rajeynaya Allah subhanahu wa ta'ala u fududeey number 8 noqo mid Allah subhanahu wa ta'ala ku xiran يعني قضب كان وقضب آت ومهمسان يعني إنا نقطيت مثل الله سبحانه وتعالى كحرا آمنسان قدرت الله سبحانه وتعالى أنا آمنسان يعني وحي كاسا عيديسا وحوال بوات خبنيسيد يعني مرول بوات رجعت لهت يكود وابي بس يعني ماشي أهربت أتجار ويسا يعني قدرت الله إني كاغي مادي يعني هديئات وهدف لهت أتجار ويسا وإنا تآمنت الله سبحانه وتعالى وحنا مركو لقود لاي إن لقو قري بلو نولش هذا دونكم كسو بيريسي إن لقو قري هديئات هدف لهت أتجار ويسا وإنا هذا الحمد لله وإنادنا آمنتا قدرت الله سبحانه وتعالى حقيسة كاغتمد هنا إسكرها دعينها ضيئة هرمر قوليستي إن هذا يعني وليا آد قول دريسانيسيد قول درد وحيكوه سيدا قول إناد آمنتا وحوال بأقود عين الله سبحانه وتعالى كو خرنات آدنا هذا الحمد لله لأنه إن شكرتم لأزيدنكم إلهي نوحو لجرى عددك سبري الله سبحانه وتعالى هدي أدكو شكر ذا محال لهاي وكو زيادين دونا waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalaad xiiso badan oo fara badan inkastoo aad ka mashquulay maalmahan waqtiga uu ii saamixi baay balse waxaan isku dayaa inaan soo dubo muuqaalo qurux badan balse waxa idinku dalgalay qodobadan maanta yani ani nafsad ahaanteeda ay anficeen idinkana waxaan rajeynayaa inay anfici doonaan insha Allah guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawashada muuqaalkayga waad ku mahadsan tahay haddii aad subscribe saartane waad ku mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh